قصدا يدا ورنا والله شيء مرر بدن لكن بيانك مهمتي ساو حيتها إلا صحابة إن ندتك إياها يسوع كيسينا الربا مساجد كالنبي الجنازة لك يعني مركز عمر دتك وحكيري ورنون والبو تمني أو وحشيغو وحكو تمني أو تمني كمحالي له يا وحني يسوع أو تمني معناه أنا وحسن تمني مركز سنن وحيرة أنا وحن تمنيه يا مساجد كمجلس فرضوا الدين تهلجن كذا أنا بعيد إن كلا سوبدو حيرة أنا وحن تمنيه مساجد كمجلس أو حلقة والدين تهلجن كذا أنا بعيد عمر بامركا وحيرة دتك مركا وحشيك شيئا أنا وحن تمنيه لهابوري نك جنازة إسكله نك جنازة إسكله وعمر بن سعد رضي الله عنه وأرضاه وأنا صحابي ninka janaazada iska leh rag isagoo kala in ilaahay isiyo diinta aanu shaqaaleeyo taasana ana tamaniyaa ka warrama daaranta Umar wuxuu tamaniyaa ninka janaazada iska leh buu yiri masaajidka la keenay ayaan waxaan tamaniyi lahaa buu rag isagoo kala ilaahay inuu isiyo diinta u shaqaaleeyo ya soo saama ninka walaalayaal qisadiisa marar badan wala inooga sheekay xayaatadiisii markuu yaraana waxyi baa ku soo degay oo taas ma rabno inaan ka sheekayno markuu weynaadayna Umar markuu meel nin u dirayo wuxuu eegi jiray ninka salaadiisu eegi jiray saabiqiyada islaamka uu lahaana uu eegi jiray ninkaas marka isha ku qabtay ninkana wuxuu ahaa nin halginkii weynaa ee dhulka la furayay caalamka la furayay inuu shahaado helo oo dhulka wax ka furo markaas Umar u yeero wuxuu yiri waxaan doonayaa magaalada Ximis ee ashtakada badan ee ninkii loo geeyay waaligii loo geeyay ka soo ashtakoonaysa Suuriya ku taala inaad halka tagtid oo adigu waali ka noqotid macnaha meesha aynu ka niraahno governator ma leeyahay ya ama barisaab aad ka noqotid orado halka markaas yiri amiirul muuminiin iga daa anaga tan madaafiicda tuurana ninka taaway maanta muxuu sameeyay ya iyagu ya amiirul muuminiin iga daabo yiri hawsha iyada iga daa kuma jirin anigu dadaalkaasaan wada hawsha dhulka la furay ee khayrka waxaan tamaniyaa ilaahay diinta halgankeeda inaan shahaado ku helo markaas Umar yiri maya maadaama waxaan oo dhan ay isla mid tahay mas'uuliyadana aad dhiibteen يا أنا وأديك وحن دنيا ماشى أنا العادل أديك وكيار طاعتي بوليمت وأبحي سند بو مقنابة ليه حال عمر بن سعد ماشي مركو تجي دتك الصلح هذا أهاب أروري وقال هذا دتك أقوى نكسنا مركز النظام مسمى زكاة وحول لك قاعدة دتك أغنياء أو فقراء ذلوا عليهم نظام كون أقسم بوسمى مدة سند مركو مقنا magaaladii wax ashtakaa kama soo yeerin laakiin baytul maalki wax xoolaa laguma soo shubin ninkii baytul maalka haybaayay ninkan sanadna way naga maqan yahay baytul maalkiina waxba kuma soo shubin markaas soo yiri warqad u qor warqadeedu markay gaarto waxa tiraahdaa waa inaad magaalada Madiina soo gal sheekh culimada kamid oo ka sheekeynay wuxuu yiri Madiinatul Munawwara iyo magaalada Xims waxay isu jiraan buu yiri 2,800 3,000 زيادة ولا يراد هل كيبو نينكي كسو لغي وانينكي غوبرناتورها اما بريساب كي ودن كاها لغ مدو سو سعودي مركو مقالة مدينة يمد اي عمر نينكي قرن وهي اديس محكومة عيد بوير مركز سوير عمر بن سعد بانا عمر باتها عمر محاد عيب بوير محاسدا صورة دادي لغيها بابوير انا صور لغي سوير مركز سوير ها ما حد عيب ويرور بئس القوم دتك حما بوير ما حتى الدمير يرو عاد سفر كاغا وكال ميستid ميو كسين وي يا امير المؤمنين حمن بوير markaan ka soo tagay salaada subaxiyada tukanayo jamca ka tukanayaan ka soo tagay anna ma weydiisan buu yiri iyaguna ima garan anna ma weydiisan maxaa saxaabada ilaahay wuxuu ku rizqay wax la yiraahdo istighna lil fuqaraa alladheena uhsiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ددو حياها إسدورة قون باهدو لقى قرنين
dadaalka diinta ay wadaan haddana wajigoodaas intaas dufanir inta marsadaan baahida aan laga garanayn laakiin ninka xeel dheer ee si eega uu fahmaya xaaladda ninkaas uu qabo marka سيدنا عمر مركا وحكوير بالورن وماشي محاد ككنتو مركا سير أمير المؤمنين نظام كاسان وصمينا نظام كانوا وشقي تحدى وحيدين صوت هاري الهايان وحيدين صوت دير الهايان وعصبوني يسير عهدي ماشي ديمها وقول نقضي ما يا أمير المؤمنين يقع في وير شقدا إياها مدام هوشي عن سوق بطي وقال لي أنا هدى أي كل دقنت هاي عمر مركا واقع قلاضي نمبو لكن كذب الدري كما حارنا nin xaaris la yiraahdo kun dirham u dhiibay orado ninka ka dabatag hadii xaaladiisu ay xun tahayna kun ka dirham u dhiib hadii xaaladiisu ay wanaagsan tahayna kun keena inoo soo celi ninkii markuu arkay ninkan xaaladiisu maalin iyo habeen uu la joogay martii isaga dhigay ayuu arkay oo xaaladiisii ayuu kunkii dirham u dhiibay markaas uu yiri waa maxay amirul mu'minin ba ku soo dhiibay uma baahni buu yiri u celi markaas xaaskii maqashay oo tiri haddaadan adigu u baahneen dadka tuuladan in la degan tuulada magaalada Madiina tuulooyinka u dhow ay deganayeen dadka agoonta ah dadka araamisha ah dumarka carmalka ah dadka dhibaataysan iyaga maad siisid haddii aadan adigu u baahnayn waan u baahan yahay dabcan isagiiba gurigiisa baahidu taala laakiin way hareer macnaha way dareensiinaysaa banaanku markaa u booday lacagtii inuu dadkii iyaga u soo qaybay xaarisna magaaladii baan dib ku soo noqday buu yiri Umar markaa uu wareystay wuxuu yiri ka waran ninkii kunkii ka waran xaaladiisa wallahi aad bay uga taalay buu yiri aad iyo aad ma siisay kunkii dirham waa siiyo markaa muxuu ku soo banaanku u booday buu yiri markaan u dhiibay warqad buu markaa soo qoray wuxuu yiri markii warqadeedaas soo gaadhay Madiina soo gal Madiina uu yimid markaasuu yiri kunkii dirham maxaad ku samaysay markaasuu yiri maxaad iga weydiinaysaa soomaad ma ilaahay baan kugu dhaarshay ii sheeg buu xageedgiis dee qadamtuha li aakhirati buu aakhiradeedii baan u hormarsan Umar markaasuu ninkii baytul maalka u furay wuxuu yiri wax alla waxa doonaysid horta raashin iyo cunto iyo waxa doonaysid halka ka qaado markaasuu ku yiri amirul mu'minin horta guriga waxaan uga imid buu yiri kombo baashan heeda la yiraahdo ayaa guriga aan uga imid raashin horta qaadan mayno yiri maxaa dhahay koombadaas markay naga dhamaato ilaahay baa rizq keen war hadalka ma fahanteen hadda waa dadka diinta caalamka gaarsiiyay dadka caalamka furay guriga maxaa yaala koomba raashin markay naga dhamaatana rizq yaa keenay haddaba dharka wax ka qaado yiri haddaadan raashinka wax ka qaad markaasuu yiri carruurta hooyadood baan laba maro uga qaaday labadii maro uga qaaday saddex maalmood kadib ayaa janaasadiisa masaajidka nabiga la keenay waa marka Umar leeyahay anigu waxaan tamaniyaa rijaal diinta halgankeeda aanu shaqaaleeyo sida ninka Umar bin Saad radiyallahu anhu arda wala leeyahay marka diintu rag bay doonaysaa ma garateen diintu rag bay doonaysaa inaynu isqadinaa la doonayaa ijtimaac baa inoo soo socda hawl badan baa jirta marka waxaa la doonayaa nin walba inuu wala leeyahay isqadimaa la doonayaa meel la inoo soo jiro ma naqaano ragga ahaaye shalay in la joogay maxamed aadan hakiye iyo kuwa maanta ilaahay jalla wa ala u raaxay waa dad qudwa ah diintii bay waqtigoodii galiyeen rijaashaas adarkaysaan diinta u tadxiyooday halka in la joogay Cabdirashiid baa kamid ah محمد آدم باكملها داير عبد الله باكملها انتين انه هلكا اذن لا جوغبا عاو قدوه انه ما قرد ادون كان نين جوغا يمله بقول سنه كهر ننه نغا ما جوغن بقول سنه سو سوتنا نين جوغا يمله سدا لا اجريد waxa la inaga rabaa caawiye inaan u kala tagin ma sha Allah waxa la inaga rabaa mas'uuliyadda iyada inaan qaadno ilaahay jalla wa ala xaqiisa inaynu eegno inaan diinta isu qadino war hawshaas oo diyaar uma tidin insha Allah إن جهد قبل الجهد آن وضع صمينه ونوال بحالك كتضحيه ديار سوى منين ده فمن منكم مستعد الله يدن بركيه وهكذا شيخ الله يجبده